in badan aynu isweydiinaa taleefankaaga ma ku baran kartaa ethical hacking mana ka maarmi kartaa adeegsiga kombiyuutarada. haddaba su-aashani waa mid marar badan ay dhalinyartu isweydiiyaan. muuqaalkeenna maanta waxaan ku faahfaahin doonaa jawaabta su-aashaasi. soo dhawaad dhalinyaro. haddaba si aynu jawaabta su-aashani si fiican u fahanno aynu ka bilowno awoodaha taleefanka iyo wax uu qaban karo. taleefanada xilligani waa kuwa awood u leh inay qabtaan shaqooyin badan kuwaasi oo caadiyan ugu yaqaani kombiyuutarska, balse waxay leeyihiin xad. taleefanadu ma qaban karaan lagumana adeegsan karo shaqooyinka iyo softwareska u baahan hardwares awood badan. waxaana ka mid ah shaqooyinkaasi marka la sameeyo analysiska ballaaran ee la rabo in lagu ogaado vulnerabilitieska lana adeegsanayo tools ay ka mid yihiin Proxite. dhanka kale taleefanadu waa kuwo markasta inaga agdhow, taasina waxay noo fududeynaysaa in ethical hackingka ku baran karno goob kasta aan joogno iyo xilli kasta. haddaba aynu isla aragno waxyaabaha uu taleefanka u qaban karo. waxaa jira tools loo design gareeyay taleefanada kuwaas oo aad ku caawin kara. waxayna ka soo qaadan karnaa kuwa networkinka oo ay ugu caansan yihiin backup droid oo si lamid ah Wireshark lagu samayn karo backup capturingka inagoo adeegsanaya taleefanada, balse uma awood badna sida Wireshark. waxaan sidoo kale taleefanada ku adeegsan karnaa penetration testingka, waxaana taasi inoo suurtagelinaya Terminus oo Android ku shaqeeya iyo Ice Shell oo iOS ku shaqeeya. labadaaniba waxay nagu shaqaynayaan sidii Linux oo kale inagoo ku fuli karna commands kala duwan. waxaa sidoo kale ka mid ah toolska penetration testingka ee taleefanada ku adeegsan karno NetHunter. intaas oo keliya kuma eka waxaan sidoo kale heli karnaa courses loogu talagalay taleefanada kuwaasi oo ah courses oo qaadan karto wax badan aad ka baranayso ethical hackingka marka la adeegsanayo taleefan. waxaa sidoo kale heli kartaa practices la mid ah kuwa kombiyuutarska adigoo keliya websiteskan ay ka mid yihiin Hack the Box Mobile kaasi oo leh challenges loogu talagalay beginnerska iyadoo la adeegsanayo taleefan. waxaan sidoo kale heli karnaa forums badan kuwaas oo naga caawinaya barashada ethical hackingka. haddaba markaad samaynayso practiceka ethical hackingka si lamid ah kombiyuutarska waxaad u baahan tahay inaad ku samayso meel amni ah oo aadan waxyeello soo gaarsiin taleefankaaga ama wax lagu magacaabo mobile sandboxing. taasina waxay naga caawinaya applications ina siinaya environment safe ah oo aynu ku tijaabino scriptyada kuna samayno practiceska aan rabno. applicationada waxaa ugu caansan Virtual Expose oo ku sameynaya environmentkii ku habboon ethical hackingka barashadiisa markaad adeegsanayso taleefan. haddaba iyadoo aynu soo xusnay waxyaabahaasi oo dhan, haddana taleefanadu waxay leeyihiin xad. marka loo yimaado shaqooyinka advanced-ga ah sida inaad samaysato full-scale virtual machines aad ku qaadato practice fiican kuwaasoo ka kooban servero, routero, firewall iyo machines kale oo virtual ah, kuma samayn kartid taleefan maadaama mid kasta u baahan yahay resource badan oo storage leh, RAM, processing power iyo kuwa kaleba si uu u shaqeeyo. sidoo kale taleefanadu awood uma leh shaqooyinka lagu analyse garaynayo networkska ballaaran weliba si real time ah oo iyaguna u baahan xawaare iyo resource badan. sidoo kale taleefanada kuma samayn karno reverse engineering. ugu dambayn taleefanada faa'iidooyinkooda iyo wax lagu qaban karo way soo tilmaamnay. haddii si sax ah u adeegsatana waad ku bilaabi kartaa barashada ethical hackingka, waana arrin macquul ah inaad ethical hacking ku baratid taleefankaaga, balse waa ilaa intaad diyaar uga noqonayso shaqooyinka waaweyn ee uusan taleefankaaga u qaadi karayn. markaasi waxaad muhiim noqonaysaa inaad haysato kombiyuutar. marna ma isku dayda inaad ethical hacking ku baratid taleefankaaga. aragtada nagula wadaagay dokumentiga, muuqaalkana la wadaag asxaabtaada haysaysa barashada ethical hackingka. mahadsanid.